may mar walba waxaan leeyahay familkeyga sida ugu dhaqsiyaha badan haddaan u shiin aabbayo hooyo ay maqlaysaan mise ay daawataan mise aad raadin jirtiin sida ugu dhaqsiyaha badan ee la soo xiriira gabadhan Soomaaliyeed ee ilmadu sida biyaha oo kale ay ugu qabanayso xanuun weyn ayaa hayo waa gabadh hooyadeed iyo aabaheed aan aqoonin markii ay weynaatay oo ay guursatay oo caruur ay dhashay oo raggii guursaday ay kala tageen oo hooyadii ayada soo korsay caruurta ay u dhiibatay kadib ayaa waxa loo sheegaba inay soo hooyada dhalin oo loo dhiibtay hooyadeed ay u dhiibatay xilligii dagaalada xamar ay timid dhibaato badan caruurtii la qaatay iyo problem ayada oo haysto magaalada dhexdeeda waxay tiri ciidanka dawladda garaacay mobile iyo lacag iga qaatay waa la jir diray halkan waa lagu garaacay waa lagu dhibaatay ugu dambeyntii cid ay dulsaar ku tahay xanuuno badan ayaa hayo gabadhan laakiin waxay taqaanaa hooyo iyo aabba iyo qabiiladooda iyo taariikhdii la dayacay ee dadka loo dhiibay miyaysan mudnayn muuqaalka in loo sheergareeyo saaxiibadaan jecelnahay sidoo kalena ramadaanka waxaan jecelnahay inaan qayb ka qaadano afurinta walaalaha dhibaataysan agoonta kuwa xanuunsan waayeelada iyo kuwa kale ee shaqadu ku istaagtay maalmaha ramadaanka ah inagu waa adeeganaynaa ramadaanka ayaan u adeeganaynaa guryaheena ayaa raashin ku camiraynaa iyaguna ayagoo baahan ay isha naga eeganayaan waan xaaraan waa dambi waa dhibaato cuqubo marka sidaa daraadeed ayay qudhooda aynu gacan u taagno $100 ayaa familka oo dhan noloshooda raashinka guriga ka caawin kartaa ciwaanada iyo akoonada shaashada ku qoran ayaad nagu soo diri kartaa waadna ku mahadsan tahay caawinaadaada السلام الله عليكم صاحب يا الكل وعن سود وهذا وبافين بعد جو بلنتر وعبد العزريري مقال كان ومتكله وأن إسلاي هاي أنيجو عونادي كجري وبايع برسمة كاريوس وبير سبسكرايب بجنبرك في المقال شهر جري ملاب الجارسي صاحب هذا فيسبوك بيج جالس على فلو يلاقتين ونراه مع سنتين سودو ولا المعان حنون كاجو تريم كرا برسمة كار مجا ولا مسترن يديان كان يصوب بقتي سلاقة علي حسن سلاق علي حسن وحمرتي كنت برامج كبافينتا بعد جوب كومد سومالي دلنتر انتين لغا سو بوقت ديغانكي ما شاء الله كله واي تأسيس عن قدين كسو بوقتي بدنا نكون هذينا الحمد لله شكر ديان كل ماي وحان ربا في ملكينا دي رادسان يا كام قرب بعد جوبيس او فاميلك كترسان hooyadii aabahay ay ugu daran inta kale markaa ka dib aan heli karaa Soomaa hooy aaba labadaba ma taqaanid ma garanayo meelna kuma ogid meelna kuma sheegi karo magacaaga iyo cali Sulaaqo Cali Xasan aabaha magaciis Cali Xasan aabahay Cali Xasan Allah magaca waa la isii maan aabaha runta maaha aabahay runta ma haye Maxamed Xasan waa aabahay runta aabaha runta magaciis maxaa lagu sheegay Maxamed Xasan hooyadaana Faadimo Maxamed waayahay intaas yaa ku sheegay marka walaasha iga weyn oo familka u weyn ay sheegtay familka ku soo korsaday waayahay waxaad si kooban igu sheegtaa taariikhdaada nooga sheekee wallaahi waxyaabo badan aan soo maray maya sida marka horeete familku ay ku sheegeen sida aad gacanta familku soo koriyay aa ku soo gashay markii hore waa yaraa ilmo yaraan ahaa waa la ii dhiibay islaanta dagaalkii aa dhacay oo ku soo noqona gabadhan ii hayay tiraa lagu yiri hooyaday sida gabadha walaasha ii sheegtay warkii uu soo gaaray ana xitaa ma ogeyn mar dhow la ogaadaybo markii way baxday maamadii nooma soo noqon inay dhahdo ilaa abtina hooyada ganacsatay ahayd ugu dhahday mariixaan ahayd dhahday yaa waayaa taada waa weydiiyay mariixaan ahayd ugu dhahday aabaha askari waa isaaq ku ahaa ugu ugu dhahday meeqa sano jir ayaa ahayd markaas uu ku dhahday markaas saayida u yaraa sanad xitaa ma gaarin ilmo yaraana waayahay halkee lagu dhiibay familka Madiino Muqdisho lagu dhiibay haye Muqdisho lagu dhiibay Muqdisho ku dhashay baa aniga aabahaana maxay kugu sheegay inuu askari ahaa inuu askari ahaa bay la sheegay inta kadib maxaa dhacay kadib reerkan baa la soo koray oo la soo barbaaray waxba iimay dhimi jirin maamada ilaahay khayr ha siiyo way soo korisay way ugu soo rafaaday way guurisay guriga ii yeeshay gabadheedu kale guurisay
ilaahay khayraasiyo jannada firdaws allah ka waraabiyo maasha allah markii dambe waa guursaday markii ugu dartay ninka waan kala tagnay wiilka waran u dhalay gabadhu way iga dhimatay ninkiina wuu dhintay alxamdulilah haddana kadib waa guursaday gabadha haddii ilmaha igu ranaabeeda guursaday Saleebaana ninkaadana waan kala tagnay walacaan nimanka ku nacaayo markaan walacaba horaa layga furaa meeqa carruur dhashay marka 6 carruur hooyadeed tahay maasha allah hadda meeqa ku joogto 4 ay joogto 2 ay ka dhimatay 4 carruur ku joogto 4 carruur ay ku joogto meeqa hadda kula nool wallaahi qof ila nool hadda ma lahan haye hooyaday haysta 2 gabdhood wiilashan aabayaashooda ay kala qaatay oo wiilba waan u waasho shooga u qaaday labada wiilba waan u waasho aabayaashooda aniga qaatay haye hadda Muqdisho la joogtaa marka oo noloshaada maadaama aad tahay gabar oo khariib ku ah magaalada yaa la joogtaa asxaab leh wallaahi la joogaa oo ay isbaranay 12 sano ka hor gabar isbaranay ala noolaa hadda aan gurigeeda joogaa alxamdulilah aan ku nabad qabaa hadda dhaawaca ka muuqdo wajigaaga maxaa kugu dhacay wallaahi dhaawacan mar la dhacayaa la igu dhuftay askarta dawladda iga dhacaysay mobil iyo lacag adoo dhac lagu geysanaya wajiga laga garaacay haa wajiga laga garaafiyay gacantaan saan oo kale waa tasawir gacanta dhaawaca ku yar u jeedaa intana waa kana way bugtaa okay dhib malahan alxamdulilah daan noolahay waayahay bal hooyo iyo aabe midkii ku garan karo bal fariin hawada mari wallaahi labadooda fariin hawada u marinayaa haddii nool yihiin ee caafimaad qabaan waxaa leeyahay gabadhiinaan ahay oo intaasoo sano idinka maqneyd waxaan rabaa sida u dhaqsiyaa badan inaad iisoo sheegataan oo iisoo raadisaan dhibaatooyinka ugu badan ee ku xanuunjinaya maxaa waaye hadda tiishkas qaado waxyaaba badan ay xanuunjinayaan soo maray bulshada maxaa kala kulantaa marka ay ogaadeen in aad dadkan la nooshahay aysan ku dhaleen inta badan ma ogaba hadda inta badan qof ogaari ma laha sabar ilinta iska tir waxaa waaye waalidka kolley hadday qorantaa waa helaysaa insha allah inaa helaa rajeena waa dareemi karnaa xanuunka hooyo Soomaaliyeed waalidkeed aan meel ku ogeyn dad asxaabihii la nool carruurtii laga qaatay single ah culays badan ku haysto laakiin waa laga gudbaa problem lahan insha allah waxyaabo badan aan ka soo gudbaadan waan rajeynaa inaan gudbo waa gudbaysaa insha allah dadka Soomaaliyeed way ku caawinayaan waa lagu garab istaagaa mar kale ma noo sheegi kartaa magacaaga oo dhammaystiran adoo dhanka aabaha Suleeqo dhanka aabaha ku daray Suleeqo Maxamed Xasan la yiraahdaa laakiin waxaa lagu yaqaanaa Suleeqo Ali Xasan waayahay Suleeqa walaal waxaa ugu dambeyn noo sheegtaa telefoon number shaashada lagu qoro furayo 9 wey 22 73 Suleeqo mararka qaar waxaa ku soo wici doono dad been ku sheegayo ku dhahay aabahagaan nahay intee ka baxday kaasay ka baxday ha ku yimaadaan ha aadin amba lacag yaa laga qaadan taa waa talo tan kale sidee ku aqoonsan kartaa isleedahay haddii qof uu ku yiraahdo aniga ku dhalay wallaahi qof aanay dhalin yani maba anigaba dareenkayga dhiigayga damqashadii maba u lahaan karibo isaguna ima lahaan karaan la aaminsanahay hadda dunida horumartay waxaa la iska qaadaa DNA saasaan rajeynaya intaa lagu qaadaa gudaha Soomaaliya ka heli Muqdisho ka heli aniga saasaan rajeynaya marka qofka ku sheegto waa inaad dhiiggaas amarto waayo hidisidaha ah DNA Soomaaliya joogto ka qaadayso qofka kaleetana meel kasta dunida ka joogo ayaa looga qaadayaa waa la soo waafajin doonaa marka waxaan jeclaan lahaa in maaragtay maxaa la yiraahdaa aadan degdegin ugu dambeyntii wax kale oo aad ku darayso baafinta ma jiro oo familkaaga ku saabsanaa mar walba waxaan leeyahay familkeyga sida ugu dhaqsiyaha badan haddaan u sheegin aabba iyo hooyo
ay maqlaysaan mise ay daawataan mise aad raadin jirtiin sida ugu dhaqsiyaha badan ee la soo xiriira taleefanadeyda shaashada ku leeyahay waayahay telefoon numberka shaashada aan ugu qortay amba hadda aan noo sheegtay ayaa laga soo wacayaa waxaan rajaynaynaa inaad dib noogu soo laabato adigoo sidaan ka duwan oo aan ilmeyneyn biidnillaahi alkariim faraxsan insha Allah guud ahaanna muuqaalkan barnaamijka baafinta baadigoobka ummadda Soomaaliyeed ee ilintir inta ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo intaan dib u kulmayno nabadgelyo